shantii bisha 2010 ayaa waxaa soo booqday iskuulka qaxootiga Soomaaliyeed saraakiil ka socota hay'adda Save the Children ee ka diiwaan gashan dalka Sanca magaalada Yemen. halkaas oo ay ku galeen qaabka waxbarashada u socda iskuulka qaxootiga Soomaaliyeed ee dalka Yemen ayaa sargaalad ka socota iskuulkaasi oo magaceeda ka socota hay'addaasi oo magaceeda Samira Haadi waxa ay la kulantay oo ay kulan la yeelatay maamulaha iskuulka qaxootiga Soomaaliyeed ee Sanca Injineer Cabdulqaadir Maxamed Cali iyadoo ay weydiisay su'aalo dhowr oo ku saabsan dhinaca waxbarashada dalka Yemen iyo qaabka ay u shaqeeyaan iskuulka qaxootiga Soomaaliyeed ee xilliga uu iskuulku ka diiwaan galay dalka Yemen guud ahaan. halkaas waxaa kale oo ku weheliyay socodkeeda Samira nin dhalinyaro oo ka tirsan staafka hay'adda Save the Children oo magaciisa noogu sheegay in la yiraahdo Mas'uud kaasoo isaguna runtii su'aalo dhowr oo kala gedisan weydiiyay maamulaha iskuulka qaxootiga Soomaaliyeed ee Sanca Injineer Cabdulqaadir Maxamed Cali iyadoo ay isla soo qaadeen labada dhinacba in iskuulka la kordhiyo qaab ahaan iyo waliba in hore loo mariyo qaabka waxbarashada ee qaxootiga Soomaaliyeed dalka Yemen taasoo ay u ballameen goordhow oo insha Allah ay hawlahaas ay gudagali doonaan. isla intii uu socday wada hadalladaasi ayaa waxaa iskuulka qaxootiga Soomaaliyeed uu soo bandhigay qaabka waxbarashada iyo waliba qaabka ay iskuulku ay u saameyn karto waxtarada haysata ee dhinaca dhaqaalaha iyo caafimaadka intaba. si kastaba haato kama dambaysta waxaa lagu soo gabagabeeyay in shir kale la isugu yimaado goordhow oo aan saa u sii fogeyn